السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan maraynaa kitaabu salaad. salaadii la waajib yeelay waa 5 horey konton bay u ahayd, laakiin ilaahay naxariistiisa nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo noogu baqayay u lahaa ilaahay way ku badan tahay oo ma qaadi karaan. ugu dambeyn waxaa laga soo dhigay 5, laakiin 5ta kontonkii bay u dhigmaan. hunna 5 وهن 50. salaada la tukanayo maadaama uu ilaahay waajib yeelay, waqtiyada la tukanayana quraankiisu ku sheegay inay salaad kasta leedahay xilli u gaar ah oo la tukado, muhiimna ay tahay in waqtigeeda lagu ilaaliyo. inna salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta. xilliyadan go'an ee ilaahay uu mid kasta in la tukado dadka farayna si gaar ah loo sii kala sheegay. fasubxaanallahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuun. xiina tumsuuna kuwa la tukanayo waqtigan waa cishaha iyo maqribka, wa xiina tusbixuuna waa salaada subax markii la waabariisto iyada la tukadaa. walahu alxamdu fi samaawaati wal-ard waa salaada casr. wa xiina tudhiruun waa salaada duhur. wuxuu si aad u sii faahfaahinayaa salaad kasta ee xilligeeda waxa lagu aqoonsan karo, hoosaska iyo waxyaabo badan buu ka hadlayaa oo lagu cabiri karo xilliga saxda ay tahay ee salaad kasta in la tukado ay wanaagsan tahay. laakiin hadda saacada la haystaa, ilaahay baa mahad leh, qof kasta waa uu garanayaa salaad kasta iyo waqtiga ugu fiican ee la tukado. waa ka sii soconaynaa marka waxaan u gelaynaa shuruudda salaada ay ku waajibto, yacni dadka ay salaada waajibka ku noqonayso shuruudda laga rabo. kow waa inuu yahay mid muslim ah, mid yacni ilaahay rumaysan oo islaam ah oo hoggaansan. marka uu noqdo ay salaadu waajib ku tahay. haddii uusan ahayn waajib kuma aha, sababtoo ah wixii ka weynaaba ka maqan. lambarka 2 walbuluuqu qaangaar inuu yahay. ilmaha yarka ah salaada waajib kuma aha, laakiin haddii uu tukado ama uu wax sadaqaysto ama wax un ixsaan cunuga yar uu sameeyo waa loo qorayaa, sida hadduu xajiyo oo kale, hadduu soomo oo kale. camal kastoo wanaagsan oo uu sameeyo ilmaha isagoon qaangaarin waa loo qorayaa oo ay ka ansaxaysaa. laakiin hadduu sameyn waayo looma qabsanayo, sababtoo waajib kuma aha. hadduu wax un sameeyana dembi looma qoraayo. waxaa ka mid ah walcaqlu, yacni garaadkiisa qofka inuu joogo. haddii uu qofka doqon yahay salaada kuma waajibayso. haddii uu waasho kuma waajibayso oo dhimirka ka tago. haddii uu suuxo mihir daboolmo waajib kuma aha. waxaa ka mid ah dadka aysan waajibka ku ahayn salaada dumarka caadada qaba ama nifaaska ku jiro, yacni dhiigga dhalmada, ayagana waajib kuma aha. waxaa loo galay salaadaha sunnooyinka. salaadaha sunnooyinka waa 5, waana kuwa ugu xoog badan ee jamacada lagu tukado. kuwa hadda aan ka hadlayno waa la kala saaray, yacni qaybta horaan hadda ka hadlaynaa sunnooyinka. alciidaani kuwa labada ciidood, yacni ciid soonka iyo ciid carafada. 2 walkusufaani waa labadii madmadoobaanayay, yacni dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadka. 3 wal istisqaa'u salaadii roobka lagu doonayay. sidaasay 5 ku yihiin. waa ciida soon 1, ciida carafa 2, dayax madoobaad 3, qorax madoobaad 4 iyo salaada roob doonta 5. waxaan ku xijinaynaa sunnooyinka salaadaha la socdo, yacni salaad kasta waxaa jirta sunnooyin la raaciyo. markii la isku wada geeyo sunnooyinka salaadaha la socdo waa 17. waan bilaabaynaa waxa ay kala yihiin: labada fajirka ka horeysa 2,
وأربع أفر ركعات أو قبل ظهر كهرتي sidaas 6 baan ku haysanaa soo maaha waxaa ku xigto وركعتين 2 rakacadood oo bacda duhurka ka dambeeyo 8 baan hadda haysanaa وأربع أفر rakacadood oo qabla casarka ka horeeya hadda waxaan haysanaa 12 وركعتين iyo 2 rakacadood bacda maqribka ka dambeeya sidaas waxaan ku haysanaa 14 و3 iyo 3 rakacadood oo cishaha ka dambeeya 14 3 hadii loo geeyo 17 ma aha sidaasay ku dhanyihiin saddexdan dambe marka aan kala saarno 2 rakacadood waa sunnada caadiga ah ee cishaha ka dambayso halka rakaca ee gaarka ahna waa witirka tirada u yar ee laga tukadaa hal ah waxay noqon karaan 3 waxay noqon karaan 5 waxay noqon karaan 7 waxay noqon karaan 9 waxay noqon karaan 11 yani markasta waa tiro isdheer inta ugu yar baa marka laga soo qaadayo hal baa inta lagu soo diray sidaas ay ku noqdeen 3 rakacadood ee hadii aad adigu doonayso waad ka sii badsan kartaa waxaa marka dhiman salaado kale oo ayagana sunnooyin mu'akkada ah yani sunnooyin la adkeeyay waxaa kamid ah salaatuleylka oo ah salaada ugu fadliga badan salaadaha sunnooyinka oo dhan marka la aruuriyo ayada number 1 ah marka laga soo tago salaad faral ahna salaada labaad ee ugu ajirka badan waa ayada rajaynaa inaad fahanteen salaad la tukado waxa ugu ajir badan salaadaha Ilaahay dadku uu ku waajib yeelay ee 5 ah waxaa ku soo xigo salaatuleyl waxaa kamid ah salaadahaas sunnooyinka ah salaad duha loo yaqaano way salaatu awaabiina la yiraahdo dadka Ilaahay u noqonayo salaada lagu garto waa salaad la tukado barqinkii markay qoraxda soo kululaato waqtigeeda waxa uu bilowdaa qoraxda markii ay godka xogaha kor uga soo yar dhaqaaqdo qiyaastii 7 iyo 20 meelahaas wuxuu ku egahay zawaalka waa salaad aad u qiimo badan saxaabadii loo dardaarmay inay soo waligood ka tagin waxa kamid ah Abu Hurayra